suuragal ma tahay in Joe Biden madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka uu ciidamadii Mareykanka dib ugu soo celiyo dalka Soomaaliya xildhibaanada jamhuuriga oo doonaya in dib loo dhigo maxkamadeynta madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Mr. Trump qodobada kale daawadayaal barnaamijkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka qayb noqon doona warbixin ku salaysan waxa ay yihiin ciidamada danab ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya qodobadaas ayaa daawadayaal ku daawan doontaan wararka channelkeena Zucamada Official fadlan muuqaalkan like saaro la wadaaga saxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan aad daawanayso fadlan channelkan subscribe saar si aan u helno saaxiibo fara badan oo ka faa'iida macluumaadka aynu halkan soo gelino xilli kasta iyo saacad waliba markaana daawadayaal ku soo dhawaada qodobadii oo dhaca daawateen oo intaasi ka sii faahfaahsan waxaana ku bilaabaya madaxweynihii Mareykanka ee xilka ka degay Donald Trump ayaa 15kii bishan amray in ciidamada Mareykanka ka jooga Soomaaliya laga saaro Mareykanka waxa Soomaaliya ka joogay 700 oo ciidamo kuwaasi oo ciidamada Soomaaliya ka caawiya la dagaalanka al-shabaab iyo mintidiinta kooxda isku magacawday dawladda Islaamka diblomaasiyiinta iyo kooxaha korjoogtada ayaa ka digaya in dalkan oo muddo 30 sano ku jiray xaalado jawareer leh uu mar kale qarka u saaran yahay foodo iyadoo dadaalka dib u dhiska Soomaaliya uu haatan qatar ku jiro xilliga uu Mareykanka ciidankiisa kala baxay Soomaaliya ayaa ku soo aaday iyadoo doorasho ay ku soo food leedahay dalka lagana baqayo in khilaafka ka taagan hanaanka doorashada uu dhibaato horseedo Soomaaliya waxay ku jirtaa xilli muhiim ah wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay James Swan ayaa sidaasi BBC-da u sheegay isagoo ka digay in dhaqanka hogaamiyayaasha qaranka iyo kuwa gobolada ee isku haya hanaanka doorashada baarlamaaniga ee dadban uu horseedi karo rabshado go'aanka Mr. Trump ayaa ka nixiyay qaar ka mid ah Soomaalida gudaha dalka ku sugan kuwaasi oo madaxweynaha cusub Joe Biden ka codsaday inuu wax ka bedelo arrintaasi Senator Ayub Ismail Yusuf ayaa go'aankaasi ku tilmaamay mid aad looga shalayn karo wuxuu sheegay in ciidamada Mareykanka ay wax weyn ka qabteen tababarka iyo tayada ciidamada Soomaaliya milkiilaha hotelka Elite ee magaalada Muqdisho xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo weerar lagu qaaday hotelkiisa bishii Agoosto ee sanadkii hore ay ku dhinteen 15 qof ayaa walaac weyn ka muujiyay in ciidamada Mareykanka laga saaro gudaha dalka Soomaaliya aad ayay inoo dhibaysaa ayuu yiri milkiilaha hotelka Elite weli waan u baahanahay Ameerikaanka gaar ahaan dhanka ammaanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bilaabay inuu wax ka bedelo qaar ka mid ah siyaasadihii ugu waaweynaa Donald Trump saacado kadib markii la dhaariyay ma jiro waqti la luminayo marka ay timaado wax ka qabashada xasaradaha aan wajahayno ayuu bartiisa Twitterka ku soo daawacay xilli uu ku sii jeeday aqalka cad ee dalkaasi Mareykanka sharciyada horyaala waxaa ka mid ah kan muranka badani dhaliyay ee mamnuucista safarka lagu tagi karo Mareykanka ee dalalka qaar oo Soomaaliya ay ka mid tahay uu ku soo rogay madaxweynaha isaga xilka uu kala wareegay Donald Trump madaxweyne Biden ayaa khudbadiisii caleemasaarka ku sheegay in Mareykanka uu hagaajin doono xiriirka caalamka iyadoo mararka qaar ay khudbadiisa u muuqatay mid uu ku durayo siyaasadda maamulkii ka horeeyay ee Mr. Trump dib baan u hagaajin doonaa xulafadeena dunidan mar kale ayaa la macaamili doonaa ayuu yiri Biden wuxuu bishii Oktoobar ee sanadkii hore cambaariyay go'aankii uu Donald Trump ciidamada Mareykanka uga saaray Suuriya iyadoo boqolka maalmood ee ugu horeeya madaxtinimadiisa uu qorsheenayo inuu wax badan ka bedelo qaar ka mid ah siyaasadihii Donald Trump haddana ma cadda inuu xisaabta oo ku darsan doono ciidamada Mareykanka ee laga saaray dalal ay Soomaaliya ka mid tahay afhayeenka taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika Colonel Chris Kanisa oo la weydiiyay in maamulka madaxweyne Joe Biden uu wax ka bedeli doono arrintaasi ayaa sheegay inaan hadda la saadaalin karin ciidamada Mareykanka ee ku sugan gudaha Soomaaliya
waxay wada shaqayn la lahaayeen kuwa AMISOM ee ka socda midowga Afrika Soomaaliyana ku tagay qaraar ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishii Abriil ee sanadkii la soo dhaafay ayuu madaxweyne Donald Trump saxiixay wareegto uu ku kordhinayo xilliga ay ciidamada Mareykanka howlgallada gaarka ah u joogayaan Soomaaliya isagoo ku daray 1 sano oo kale hase yeeshee iyadoo laga yaabo in muddo kordhintaasi ay ahayd tii ugu dambeysay haddana saraakiisha difaaca ee Mareykanka waxay sheegeen howlgalka Soomaaliya uu qaadan karo sanado kale in ka badan 3 sano ayay koox Mareykan ah oo howlgal qaas ah loogu talagalay ku suganayeen Soomaaliya shaqada ugu badan ay hayaan waa inay dawladda Soomaaliya ka caawinayaan arrimo ay kamid yihiin caawinta dagaalka ka dhanka al-shabaab la talinta dhinaca fulinta weerarada cirka iyo kuwa dhulka tababarada ciidamada militariga iyo sidoo kale dhisitaanka ciidan tayo leh saraakiisha militariga ee Mareykanka ayaa aasaasay ciidamada commandoska Soomaaliya ee loo yaqaan Donab kuwaasi oo ay tiradooda kor u dhaafayso 3,000 askari waxyaabaha kale ee militariga Mareykanka ka sameeyeen gudaha Soomaaliya waxaa kamid ah duqeymaha loo adeegsado diyaaradaha uusan duuliyaha saarnayn ee droniska loo yaqaan kuwaasoo lagu bartilmaameedsado saldhigyada iyo dhaqdhaqaaqyada al-shabaab faragelinta militariga Mareykanka ee Soomaaliya ayaa soo bilaabatay sanadkii 2007 markaasoo duqeymo ay fulisay diyaaradaha nuucoodu yahay AC-130 lagu dilay dad ay rayid ka mid yihiin sanadkii 2019 ayay ciidamada Mareykanka Soomaaliya ka fuliyeen duqeymihii ugu badnaa abid oo gaaraya ilaa 60 weerar oo xagga cirka ah weeraradaas oo la kala fuliyay bilihii Janaayo, Febraayo, Maarso, Abriil, Luulyo, Agoosto, Oktoobar, November iyo December ayaa lagu dilay in ka badan 200 oo ka tirsan xubnaha al-shabaab iyo sidoo kale dad shacaba ugu dambeyn daawadayaal jamhuuriyiinta aqalka sare ee Mareykanka ayaa ka codsanaya dimuqraadiyiinta in ilaa bisha Febraayo dib u dhigaan dacwadda ku soo oogidda madaxweynihii hore ee Donald Trump waxay ku doodayaan in taasi ay waqti dheeraad ah siin doonto Mr. Trump si uu isdifaacidiisa isugu diyaariyo waxaa lagu eedeynayaa kicin kadib markii taageerayaashiisa ee bishii la soo dhaafay galeen dhismaha Capitol dimuqraadiyiinta aqalka wakiilada ayaa diyaar u ah in ay dacwadda ku wareejiyaan aqalka sare Mr. Trump ayaa u duulay Florida iyadoo muddo xileedkiisa uu dhamaaday Arbacadii isagoo aan ka qayb gelin caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka Joe Biden 6 January madaxweynihii hore ayaa dad ku dibad baxay meel u dhow aqalka cad u sheegay in si nabad ah oo wadaninimo ay ku dheehan tahay loo maqlo codkooda xilli ay isku diyaarinayeen in ay isku soo baxyo ka sameeyaan dhismaha US Capitol wuxuu sidoo kale u sheegay in ay si xun u dagaalamaan dibadbaxyada ayaa markaasi foodo isku bedelay iyadoo ay koox si xoog ah ku galeen dhismaha Congress-ka halkaas oo ay xildhibaanadu ku guda jireen ansixinta guusha Mr. Biden afar dibadbaxyaal ah iyo sidoo kale sargaal booliiska Capitol ka tirsan ayaa ku dhintay dhacdadaasi toddobaad kadib Mr. Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee 2 jeer xil ka qaadis lagu gudbiyo dacwad ku soo oogisiisa ayaa noqonaysa tii ugu